الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaynu mahadda alla dabadeed subxaanahu wa tacaala u mahad celinaynaa markaz alimaam الshaafiعي lidacwati waالtacliim oo kulankan caawa iyo dowrada ka dambaysaba soo qaban qaabiyey waxaan leenahay jacala allahu dalika fi miisaani xasanaatikum wanafaca bidowratikum wabijuhuudikum dadaalkaa samayseen alla subxaanahu wa tacaala dalabatulcilmiga iyo bulshada guud ahaan ba allah ku anfaco mowduuca intii dictoorka iyo suldaanku ay sheegeen buu ku dhan yahay waxna kamay tegin si fiicanna waa usoo koobeen waqtigiina waa inoo ilaaliyeen jazaahum allahu khayra ilaahay labadoodaba ha kabaan marin kelmadda ugu dambaysa waxaan in yar dul istaagayaa daqiiqado kooban oo intooda aan ka badnayn insha allahu tacaala qofka cilmiga dalbaya seeska koowaad ee uu ka duulayaa waa inuu han leeyahay hiigsi inuu leeyahay inuu danaynayo u xiisa qabo cilmigu ku weyn yahay uu eegayo midhaha uu ka helayo adduuniya aakhiro iyo sida uu xaalkiisa u bedelayo waxyaabahaasoo dhan qof eegaya oo milicsanaya oo ay u caddahay halka uu u socdo kadibna xiisihiisu batay qofka noocaasa cilmiga meel ka gaadhaya markaynu ka hadlayno han in la yeesho waa halka laga bilaabo wey markaad han yeelato danayn aada yeelato ayaa waxaa imanaya mawduucii doctor faysal ka hadlayay xaggee loo doonanaya xaggee la aadaya halkee laga bilaabaya marka taasi dhacdona mawduucii suldaankaa imanaya in midhihii la helo iyo amaraadkii walibana mawduucaasi hankana waa u baahan yahi oo waxyaabaha hanka lagu kobcinaya waxaa ka mid a qofku inuu ogaado midhaha iyo maxsuulka iyo faa'iidada laga helayo haddii cilmi la xasiliyo culuw lhima hanku inuu sareeyo alla subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa waa ku ammaanay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa waa ku balballaadhiyey dadkii wanaagsanaa min aلصaxaabati wاtaabiciin waman tabicahum biixsaan ilaa yowmina hada wa ilaa yowmi اlqiyaama waxa weeye la waayi maayo dad hanle lagu daydo waxa weeye la waayi maayo kitaabka alla haddaynu tusaale keliya ka soo qaadano waxaa laynooga sheekeeyey banu israa'iil ayaa ilaahay wuxuu isu saaray almanna wasalwa waxa weeye sharaab aada u macaan oo malabkao kale ah iyo shimbiraha noocii ugu hilibka macaanaa oo la shiilay sharaabka cidda samaysay waa min allah ilaahay baa samada uga soo dejinaya waanzalna calayhim almanna wasalwa ilahay baa kusoo dejinaya shimbirta cidda shiishay waayo waa allah kuugeenna ugu fiican waxaa laga yaabaa maalin in la yidhaahdo saliiddu ku badi ama milixdu ku badi ama way ka gubad ama uu ka jilcay isagoo kuuga laakiin ilaahay baa hagaajiyoo sameeyey cuntadaasaa la ysu saaraya mid walba dabeedna markay muddo wadeenba waa bini aadana way xiisa dhaceen oo waxay yidhaahdeen waxa weeye lan nasbira calaa طacaamin waaxid cuntadani waa nagu indho badata maalin walba beriis cuni mayno baasta cuni mayna ka dhiganta ha naloo bedelo laakiin maxay ku badasheen wixii ilaahay inoo sheegay toon iyo basal iyo cadas misir waxyaabahaasay dalbadeen ilaahay waa la yaaba atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr waa lagu dhaleecay dad wixii wanaagsanaa ee qiimaha badnaa la siiyey oo intay ka tageen ku bedelanaya wax liita
waxay culimmadu u daliishadaan hanka sare sida alla subxaanahu wa tacaala uu qiimeynayo. sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam laba tusaale saddex tusaale haddaynu ka soo qaadanno, nabigu waa inugu guubaabiyey qofka hankiisu inuu sareeyo. ina allaha yuxibu macaaliya alumuur wa yakrahu safsaafaha. waxyaabaha kuwooda sareeya ilaahay waa jeceli. dalabulcilmiga laftiisu isagoo wada wanaagsan, haddana meesha ugu wanaagsan inaad tiigsanaysa ilaahay waa sii jeceliya. kuwooda liitana ilaahay ma jecla. nabigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixaynka ku yimi, idaa sa'altum allaha aljanna fas'aluuhu lfirdows. ilaahay janno haddaad weydiisanaysaan waxaad weydiisataan alfirdows, fainahu aclى aljanna wa awsط اljanna wa minhu tatafajaru اlanhaar wa fowqahu carshu الraxmaan. ilaahay janno haddaad weydiisanaysaan ha odhanina ilaahw jannadana geli, ee ilaahay waxaad weydiisataan alfirdows alaclى min aljanna. bal waxaaba laga yaabaa taa nabigu sheegaya calayhi الsalaatu wasalaam mid ka sii hooseysa. ninku hadduu idhaahdo ilaahw jannaday geli, dee wax wanaagsan baabu dalbaday, yaanu firdowsba dalban. laakiin dadka qaar baa laga yaabaa hankooda inuu kaba hooseeyo. waar cadaabka un haddii aan ka badbaado jahannamo ilaahay iga badbaadiyo, banaanadaasaan iska wareegi lahay, jannadu ha ii dambayso. ama jannada kedikeeda haddii la fadhiisiiyo waa sida laynagu yaqaane, ahlu jannaha iska shaxaadi laha oo geedhkay wax iga soo tuuri lahaayeen, cadaabkiina aan ka badbaado. cadaabka in laga badbaadaa waa wax weyn. laakiin nabigu wuxuu ku leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam, ilaahay haddaad wax weydiisanaysa jannada xaggeeda sala weydiiso, hankaa lagu baraya. xadiidkii kale ibnu xibbaan saxiixiyey albaniyo wuxuu leeyay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam, man sa'la rabbahu falyuktir fainamaa yas'alu rabbah. ilaahay haddaad u soo fadhiisato inaad wax weydiisato, badi baryada badi, waxaad ilaahay weydiisanaysa badi, kamiyadana badi, tiradana badi, waxyaabo badanna weydiiso. waxa aad weydiisanaysana waxa ugu qiimaha badan weydiiso, dhinac walba u badi. fainamaa yas'alu rabbah, waayo cidda aad wax weydiisanaysaa waa ilaahay. waa ilaahay. sida bini aadamka aynu u shaxaadno ilahay wax loo weydiisan maayo. qofka bini aadamkaa hadduu dadka ugu maalqabaysan yahay, de waxaad weydiisanaysaa waxaad is leedahay uu ku siinaya, kugu nici maayo, waa soo dhaweynaya. discounti baad u samaynaysaa sooma, saaad maalin dambana ugu soo noqoto, xaalufin maysa. laakiin ilaahay wuxuu jecel yahay wax weyn in la weydiisto, wax ilaahay u cuntaba in la weydiisto wey. waa ducadii la doonaya hansara in loo yeelo. sunnada waxaynu kaga baxaynaa, saxaabada waa ogtihiin oo han bay lahaayeen aada u sareeya. saxaabaduna de waa kala duwanaayeen oo abibakar baa ka mida, cumar baa ka mida, ibnu mascuud iyo ibnu cabaas oo culimadii waaweynaaye saxaabada ayaa ka mida, abi sufyaan iyo raggii la midka ahay oo madaxa baa ka mida. noocyo badan bay lahaayeen. saxaabada waxaa ka mid ah rag baadiye jooga oo miyi ka yimi, oo cilmi badanna aan lahayn, reer magaalna aan ahayn, oo dee waxa ay u baahan yihin ay iska koobnayd. rabiicatu bnu kacbin alaslami ayaa wuxuu ka yimi baadiyaha, ayuu ka yimi sida saxiixu muslimka ku sugan. nabigu soo martiyey, dhowr habeen buu la joogay. kuntu abitu maca nabiyi sala allahu alayhi wasalam faatiihi biwaduu'ihi wa xaajatihi. wuxuu u adeegaya nabiga calayhi salaatu wasalaam weysada iyo waxyaabaha la midkaa ayuu nabiga u keenayay. nabigu wuxuu jeclaystay maalintii dambe inuu abaalgudo. wuxuu ku yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam, yaa rabiica sal, waxi weydiiso. nabigana dee ducadiisu hadduu ku duceeyo waa mustajaaba. wuxuu ihi asaluka muraafaqataka fi ljanna. nabi allah waxaan ku weydiisanayaa jannada inaynu ku saaxiibno, jannada inaynu saaxiibba ku noqono. nabigu waa la yaabay calayhi salaatu wasalaam, waayo halka uu ka yimi iyo xaalkiisa
iyo duruufta uu ku sugan yahay waa nin baadiye ka yimi magaalada kale hawlo badan baa u yaalla iyo waxa uu dalbaday iyo hankiisu halka uu yahay buu nabigu la yaabay taana waxayna tusaysaa nabigu su'aal buu ku celiyay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi awa gayra dalika ya rabiica rabiica dalab kale ma haysaa wax kale ma haysaa kaa ka gudub yani kii lagaa filanayay maaha wuxuu ihi huwa daak waa kaas wax kala dooni maayo nabigana la yaabi mayna calayhi salaatu wasalaam waayo dee dad badan oo noociisaabuu la macaamilay oo dee waxaa ka midka ahaa ninkii baadiyaha ka yimi ee nabiga calayhi salaatu wasalaam u imanayay ee waxa weeye nabigoo sii socda ku dhegaya go-a ku dhegayay ee marada ku ciijinayay ilaa maradii ay nabiga ku sawirmaysa calayhi salaatu wasalaam markuu go-ii adkaa burdun haliidun haliidu lxaashiya najaraani nabigu uu xidhnaa calayhi salaatu wasalaam dabeedna nabigu uu soo eegeeyey kadibna uu ku odhanaya maxaad doonaysaa ee ugu jawaabaya mur lii min maali illaahi aladii cindak xoolaha ilaahay noogu kaa dhiibay wax naga sii xoolahaada hayso wax naga sii si kagan yaa nabiy allah yaa rasuul allah xitaa odhan maayo oo nabigu siinaya calayhi salaatu wasalaam kuwo kalaa u imanaya dabeedna waa siiyaa haddana waa weydiistaa waa siiyaa dad badan baa nabiga soo mara calayhi salaatu wasalaam rabiicatu bnu kacbin ilaslami hankiisu wuxuu gaadhay inuu nabiga weydiisto jannada inay ku saaxiibaan oo rafiiq ku noqdaan ayuu nabiga weydiistay nabiguna calayhi salaatu wasalaam taluu siiyey faacinnii calaa nafsika bikahrati sujuud hanka sare loo baahan yahay wuxuu gelayaa kow xiisaynta iyo danaynta cilmiga aada danaynayso mawaaqiftii hadda la tilmaamayay iyo kuwa la midkee laynooga sheekeeyey dhammaantood waxay tilmaamayaan cilmigu inuu ku weynaayo ku qiimo badnaa qaar waxay yidhaahdeen waxaan jeclaystay oo u xiisooday bahasha hariisada la yidhaahdo alhariisa ayaan waxa weeye u xiisooday muddo dhowr sano a baan u xiise qabay oo aan jaanis waayo aan ku cuno waxaa la yidhi waayo wuxuu ihi xilliga suuqa la keeno waa xilli kooban waa lagu kala tagaa wuxuu ihi xilligaana darsi baa igaga beegmay maalin inuu jaro darsiga si uu hariisado u cuno waa haleeli waayo maalin walbana waa u xiisoonaya ibnu abi xaatim iyo markay ka sheekaynayeen ay lahaayeen waxaanu u xiisoonnay kalluun inaanu cunno waxay yidhahdeen maalintii dambeaanu soo iibsanay kalluun casharkii markaanu ka soo baxnay baanu kalluun ma doonaysaan ha muddo maynaan cunin xabad kalluun oo qaydhiina bay soo iibsadeen darsigii markay ka soo baxeen bay guriga u qaateen guriga markay tageen waxay ku mashquuleen casharkii inay muraajaceeyaan oo ay kala qortaan ninba waxa ka maqan ka kale ka faa'iidaysto siday ugu mashquulsan yihiin baa darsigii kala soo galaa dabeedna way ka baxaan 3 maalmood markii xabadii kalluunka ahayd ee u xiise qabeen meesha taallay ay ka baqeen inay qurunto ayay qaydhi ku cuneen xitaa waqti lagu bislayo looma hayo waxa weeye lama hayo qaar waxa weeye safarro dhaadheer oo bilaasahaya bay u galeen xiisaynayaan danaynayaan dabeedna intay haraadeen bay kaadidii u cabbeen waxyaabo yaroo iska sahlan baa le kaadidii usoo cabbe cilmigii sharciga ahaa bay kaadi dhaba u cabbeen shihaabudiin ibnu khiraash baa ka mida 5 jeer baan kaadidayda u cabbay haraad awgeed anuu xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam dalbaya himmadu waxaa u baahan xifdiga inaad tidhaahdo juscama haddaan dhammeeyo waa falilaahi alxamd iyo inuu qofku yidhaahdo qur-aanka o dhan baan doonayaa inaan xifdiyo waa han kala duwan 40ka haddaan xifdiyo waa falilaahi alxamd iyo bukhaarigaan xifdinaya ama buluuqa iyo riyaadu saalixiin waa kala hawn camriidiyaha 200 iyo xoogaaga ah naxwa haddaan kaa xifdiyo falilaahi alxamd iyo ina maalig baan xifdinaya
waa kala han xifdigii han buu u baahan yahay muraajacadii iyo darsigii in lagu noqnoqdaa han buu u baahan yahay akhriska in la badiyaa han bay u baahan tahay kutubta in la iibsado dowraa hadda bilaabmaysa haddii dee bilaash laydiin siiyana waa falilaahi alxamd haddii lagu yidhaahdo waa dollar iyo badhoo ka soo qaado maktabadda heblo ka soo qaadana waar bilaash haddaan lagu helin aad kabaha ka qaadato han weey inaad kutubta iibsato oo lacag aad u hurto oo kitaabkaad u baahata haddii lagu yidhahdo waa $100 aad soo siisato musnad alimaam axmed markuu soo degay $1,500 baa la kala siisanay waa hal kitaab musnad alimaam axmed qaar ka qaalisanayna waa jiray $1,500 ninka burca joogay maanta kitaab siisanaya waa kii waar nusroor bay gooraysaa buu odhanaya nusroor buu iibsanaya qaar waxay u xaraashayeen guryihii ay lahaayeen si ay kutub u iibsadaan waxyaabahaasoo dhan waa hanan kala duwan oo loo baahan yahay qofka aalibulcilmiga ah inuu ku sifoobo haddii kale dee waxaagu tacabkaagu wuxuu noqonaya biyo colaashabay noqonaya waxaa kaga baxaya hanka ugu liitaa waxa uu yahay in hankaagu uu ku soo koobmo maxaan cunaa maxaan cabbaa waa han liita wey ninkii carbeedna waa kii habaarayay laxa allaahu sucluukan munaahu wahamuhu min addunya an yalqaa labuusan wamacama yara alkhumsa tacdiiban wain yalqa shibcatan yabid qalbuhu min qilati lhami mubhama wuxuu hi ilaahay ha fogey sucluuk waa mid faqiira waayo qalbigiisibaa maran caydh wey mar haddaadan han lahayn caydh baata jeebabka waa ku buuxaan wuxuu hi ninkaasi hankiisu adduunyada maxaan cunaa maxaan cabbaa wey haddii uu dharag helana hankoo dhani waa soo dhammaanaya waayo hankiisuba wuxuu ahaa inuu wax cuno wax cabbo calooshu hadday u buuxsanto waa ugu dhanta oo seexanaya 12 saacadood ama 20 saacadood hadduu gaajoodana waxay la tahay cadaab bay la tahay inuu cadaab kale qaarna wayba ka sii fogeeyeenoo waxay yidhaahdeen man kaana hamuhu maa yuuliju baطnahu faqiimatuhu maa yukrijuhu baطnuhu ma macnayna masaytaasina ku dhaafo way fool xumaanaysaa haddii la macneeyo laakiin dadka qaar baa laga yaabaa inaanay fahmin laakiin anigu tii horaa la socdaa tan waa lagu taraxtay waxay yidhaahdeen ninka qiimihiisu u noqdo wuxuu caloosha gelinay ninka hankiisu u noqdo iyo doonitaankiisu waxa uu caloosha gelinayo ninka hankiisu intaa noqdo qiimihiisu wuxuu noqdaa waxa caloosha ka soo baxaya waxaa caloosha ka soo baxaya qashina ayaa waxa weeye hankiisuna qiimihiisuna noqonaya marka hankaagu inuu aada u sarreeyo oo uu noqdo alle subxaanahu wa tacaala iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo sharciga alleh iyo ilaah iyo rasuulkiisa hadalladooda inaad fahanto waxaa lagu odhanayaa ninkaa waxa yaqaana hebel baa af yaqaana oo fahmaya cilmigan la sheegaya ama culimadan la sheegaya waa dadkii ilaahay afgaranaya wey ilaahay fahmaya ee wuxuu sheegay ilaah iyo rasuulkiisu dadka u gudbinaya marka in lagu yidhaahdo ilaahay la yska kaa xejiyo sharcigiisi ilaahay aqoontii loo yeelan lahaa inaad ka mid noqoto dadka ilaahay afyaqaana ee ilaahay loo marayo ee diintiisa laga faa'iidaysanayo waa shay aada iyo aada u qiimo badan adigoo taa helaya inaad gaadho inaad meelo hoose ku wareegta maaha ilaahayna waxaan ka baryayaa hankii qiimaha badnaa ee dadkii wanaagsanaa lagu yaqaanay in alla subxaanahu wa tacaala inugu arsaaqo waxyaabaha inaga mashquulinaya social media uu ka mid yahay iyo adduunye jeclaysiga iyo waxyaabaha la midkaana ilaahay inuu waxa weeye inooga fududeeyo inoo dhib yareeyo ayaan alle subxaanahu wa tacaala ka baryayna wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waalihi wasaxbi waslem